الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. داودياش قيمة يقايالة ورسن تي في وحاتاتن كسو دواتان برنامج كينا موقتها وساعدان وكالا السعودان تلفزيون كورسن حدا بقودب كأنه قوري أنا عاو كسو خالد دونا وحاو نخون دونا موقتها إنك لا يرادو فريدريش ويلهلم وهاننك uguhorey اسمي كولada loo isticmaalo bashqadaha warqadaha la isku qudiro sanadka markuu ahaa 1845 mise ogtahay in Mr Wilhelm uu ahaa aqoonyahan iyo culimada sayniska ma ogtahay in Mr Wilhelm uu noolaa inta u dhaxaysay 1782 ilaa iyo 1852 ma ogtahay in hadalka wanaagsan in uu sadaqo yahay mise ogtahay in hadalka wanaagsan in uu qurux badan yahay ma ogtahay hadalka badan in uu daldaloolo badan leeyahay mase ogtahay in aamusnidu ay xikmad tahay ma ogtahay in hurdada muhiim tahay sida neefsashada oo kale mise ogtahay in hurdada fiican ay kor u qaado qofka wax soo saarkiisa ma ogtahay in Mr Bell Henry oo u dhashay dalka Scotland uu ku guuleystay inuu sameeyo doontii ugu horeysay ee loo isticmaalo sharaaca sanadka markii uu ahaa 1812 doontaasi lagu magacaabay The Comet mise ogtahay in doontaasi ay noqotay tii ugu horeysay ee lagu guuleystay inay ganacsi ahaan ay uga howlgasho gudaha dalalka Yurub ma ogtahay in Mr Bell Henry uu dhashay sanadkii 1767 wuxuuna geeriyooday sanadkii 1830 ma ogtahay in Sir Humphrey Davy oo ahaa culimada ama scientist Ingiriis ah uu ahaa ninkii ugu horeeyay ee sameeyay nalka loo isticmaalo korontada mise ogtahay Mr Davy wuxuu dhashay sanadkii 1778 wuxuuna geeriyooday 1829 ma ogtahay in makiinadii ugu horeysay ee dharka lagu talo la sameeyay sanadka markuu ahaa 1830 mise ogtahay inuu sameeyay nin u dhashay dalka Faransiiska ma ogtahay in boqorka kubadda cagta Pele uu ku dhashay degmada Tescora ee bartamaha dalka Brazil 23 Oktoobar sanadkii 1940 Pele abihiis waxa uu ahaa xirfadle kubadda cagta ah hase yeeshee goor ay ciyaaraha uga fariistay dhaawac soo gaaray awgi Pele hooyadii wax ay la jecleed inuu wiilkeeda qareen noqdo laakiin Pele wuxuu doonayay inuu ciyaaro kubadda cagta sidii aabihii oo kale mise ogtahay in ciyaartii kama dambaysta ahayd ee koobkii adduunka 1958 waxa isugu soo haray Brazil iyo Sweden oo ahaa dalkii martigeliyay koobka adduunka waxaana ay guusha 5-2 ku raacday xulka Brazil mise ogtahay inuu Pele kamid ahaa ciyaartoygii guusha u qaaday xulka Brazil ma ogtahay in gudoomiyihii ugu horeeyay ee guddiga Olombikada adduunka uu ahaa Mr Dimitrios Vikales mise ogtahay in fikirkii ugu horeeyay ee soo baxay waxa uu ahaa in ciyaarihii Olombikada ee ugu horeeyay lagu qabto Paris sanadkii 1900 laakiin Mr Vikales ayaa ku guuleystay in uu guddigii la shirayay oo ka dhaadhiciyo in lagu qabto magaalada Athens ee xarunta dalka Greega bishii May sanadkii 1896 fikirkana waa uu ku guuleystay waxa intaasi dheer inuu Mr Vikales uu ku geeriyooday magaalada Athens ee xarunta dalka Greega 20 July 1908 ma ogtahay in badweynta Hindiya ay kamid tahay badaha adduunka ugu waaweyn waxayna u dhaxaysaa qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Australia baaxadda badweynta Hindiya waa 3,481 kilomitir daawadayaal waxa halkaas gabay ahaan noogu dhamaaday barnaamijkeena ma ogtahay barnaamijkan oo idin soo jeedinaya anigoo Zakariya Ali Jaamac intaan hawada dib dambe ku kulmi doono waa anigoo idin la sidaas nabadgelyo wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh